أحد العلماء عصورة النولة كم إذا علماء التربية أني ماكو تخصصي دكتور إبراهيم الخليفي أيا وحو إلى هذا عصري كان وحي نوبة هن يقولي رخصة قيادة الوالدين لبحية ليسانس ليسن كوالد نما ينقفك الله سيبو يرين تانو ورقلين وإلا أبوليه إسنو تشبايا عررتنا ويشبايسا ليس كوالد نما وامحي ودننا المسلمين تاين دايرتا ودن كاميدا أيا وحو بطاي فريتانكا أروس بلا دقيا ومبالس فريا أروس بلا دقيا دادكي فرستي دولة دي waxay tiri see wuxuu jiraa dawladdu daraasad markay sameeyeen waxay yiraahdeen dadku iyagoo aan la barin guurka iyo waxa ka ratibmaya iyagoo moodaya meeshu sax inay tahay in la tunto wiilkiyo gabadhu inay tumanayaan iyagoo moodaya ay guri galaan dabeetana maadaama aqoon darradaasi ay jirto wada noolaanshiyahooda cidhiidhi noqda waayo laba qof laba guriyo kala dhaqana kala jara kala nooca qaab looga kala noolabay ka yimaadaan inta badan markaa waxa kaleesh ka dhaxdhaca bay yiraahdeen labadan qof ay isu yimi furitaanka ugu badan la bay yiraahdaan 6 bilood ugu horeeya ama sanadka ugu horeeyo dhaca waxa xalabay dawladdu Swedish waxay dawladdu garatay markaa waxaynu sameeynaa in course la siiyo qof kasta oo guursanaya qofkii course ka soo qaata ee shahaadada qaata dawladdu waxay ugu deeqaysaa arooska waxa ku baxa lama odhanin qasab wala ugu meherin laakiin waxa weeyaan heli maysid macuunadii dawladda oo ah in guriga iyo wixii kaaga baxayo dhan kharashka in lagu siiyo heli maysid haddii aanad qaadanin maxay course kan aad soo qaadan course ka marka lagu dhigo liisan baa lagu siinaya sheegaya inaad u cuntanto inaad guursato waa shahaada soo shahaado jaamacadka kama qaadataan ama shahaado darawalnimo soo qaadatay liisan sheegaya inaad gawaadhida ka xayn karto waa liisan sheegaya inaad reer wadi karto inaad reer noqon kartaan ayaa lagu soo siinaya liisankii marka uu qofku qaato dadku marka hore inta badan le uma galaan cilmiga aad baratidee wuxuu u galaaday inuu helo $50,000 ama $60,000 ee dawladdu ay guriga qalabka yaaliyo wax oo dhan ku dhigayso marka qof waliba si uu guriga u helo course-ka bisha abu soo qaadanaya course-ki markay soo qaateen si automatic ah furitaankii hoos ugu dhacay wadankii hay dawladdu ku guuleysatay marka inay yarayso furistii hoos u dhacay waxa soo baxday inay waxaan aqoon darro inteeda badani keensanaysay wax laga maarmi kari lahaa haddii dadka la baro inuu guuleysto ninka khabiirkan muslimkii wuxuu leeyahay sida gaadhiga loogu qaato buu leeyahay darawalka liisanka loogu qaato baynu u baahanay in ilmaha kasta ee guursanaya ama qoys kasta oo wax dhigay qoysnimo sameynaya rag iyo dumarba in la siiyo liisanka waalidnimo buu leeyahay wa illa haddaanu liisanka qaadanin buu leeyahay isna wuu dhib mudanaya ilaa waxaanu garanayn buu wadaaye ilmuhuna wuu ku dhib mudanaya ilmuhuna mushkilad baa haysata waalidkuna isna waa xiqsan iyo juhdi iyo awood iyo xoog uma baqanin wuxuu bay la mid tahay buu leeyahay nimaan darawal noqon oo leeyahay gaadhiga kaxee isna waa dhib mudanaya dee maalinba darbu jiiraya maalinba shil buu galaya dadka kalena khatar buu gelinaya ilmahan aad dhalaysa haddaan la tarbiyeynin dadka kalena khatar bay gelinayaan adna khatar bay ku gelinayaan naftoodana khatar bay gelinayaan intaba khatar bay ku jiraan أحد العلماء عصورة النولة كم إذا علماء التربية أني ماكو تخصصي دكتور إبراهيم الخليفي أيا وحو إلى هذا